waxaan doonayaa in wax ka yaraado dadka na aqoon shaqadoon cid ay tahay kulli dad badan oo runtii wada shaqayn asxaab shaqa wada maartay asxaabo ma garanaysa hore aan wada shaqayn jirnay inala joogan maanta laakiin shaqadoon waa organization maxalliya jiray marka 12 sano muqdishona 12 ka sano xafiisku ka furnaa oo laga shaqaynayay activity kala duwan la sameynayay waxaan kala leenahay marka waa headquarters ku Hargeysa muqdisho iyo Garowana waxa ku yaala laba kala permanent offices waxa kale jira saddex youth centers oo midna ku yaalo Gibiley Hargeysa Berbera iyo mid imika Barawe aan ka dhisayno oo inta waxay focus-koodu yahay sidee dhalinyarada loo support gareyn lahaa oo xirfadooda sare loogu sii qaadi lahaa Soomaalida waxay tiraahdaa qofka kabaada ka tolonayso kabiisa la fiiriyaa marka shaqadoon shaqooyinka heeso waqti badan waxay geliyeen skillska iyo horumarinta dhalinyarada Soomaaliyeed hay'ad Soomaalida lagu faari karo muddo 12 sano sustainable oo consistent ayadana waa wax lagu faaro waana dhiirigelinayna waan u mahadcelinayna waan mahadsan yihiin maxay shaqadoon isbedel noocay ugu yeelatay shakhsi ahaan ay ugu yeelatay isbedel aad iyo aad u weyn oo ah bilowgayga inaan lahayn xirfad balse aan raadinayo xirfad wanaagsan oo aan suuqa kula falgali karo oo aan ku shaqaysan karo and then xirfadii waa helay wanaagsaneed shaqadii aan u baahnaana waan helay intaasna alla ka soo waxaan u mahadcelinayaa shaqadoon As we all know, the success of a nation always depends on the success of its youth. So we're nowhere without the youth. So why do we celebrate this day? This day, why we're all here, it allows us to unite in recognizing the potential of young people as catalysts for change and to commit, all of us here today, to commit to providing them with skills and opportunities that they need to build a prosperous and sustainable world for all. marka ay suuqa Soomaalida xirfado nooc ah ayaa jeclaan lahayd inay yeeshaan dhalinyarada Soomaalida ay soo qanjiyeen si ay u jawaabaan baahidiina annaga waxaan ka shaqeynaa waa financial way moogtahay field walba oo la baranayo wuxuu u baahan yahay xirfad gooni oo ka caawinaysa qofka shaqadaas la xiriirta tusaale ahaan hadda annaga Premier Bank waxaan bahawadaag lanahay institutiono badan oo ay ugu horeeyaan jaamacadaha waaweyn ee dalka kuwaas oo dhalinyaro badan soo saara oo inta badan naga codsada in la siiyo internship programs oo ah fursado ay xirfadooda ku isleys karaan mararka qaarna ay dhacdaba dhalinyarada ay soo diraan naftirkooda in bangiga markuu arko firfircoonidooda iyo aqoontooda in fursado la siiyo shaqo inay ka shaqeeyaan bangiga oo dhalinyaro badan oo bangiga taas ugu shaqeeyay jiraan inta yani naftiga aan waxaan aaminsanahay inta entrepreneurs inay noqdaan intii ay shaqaale ay raadin lahaayeen in ay fikir inta la yimaadaan oo business ideas ay keensadaan oo maalgelin u raadsadaan